runtii safarka noo yimid wuxuu ahaa safar shaqo waxaan ka soo qayb galay shir sanadla ah oo sanadkiisii labaad ka qabsoomayay xarunta bangiga adduunka oo la yiraahdo toddobaadka sharciga cadaaladda iyo horumarka shirkaas baan runtii ka soo qayb galay shirku waxa weeye waa shir sanadla ah wuxuu bilaabmay sanadkii hore 2018 inta badan waxaa ka soo qayb gala maxkamadaha sare ee adduunka wasaaradaha cadaaladda xafiisyada xeeraalinta iyo hay'adaha kale ee ka shaqeeya arrimaha sharciga iyo cadaaladda ayaa runtii ka soo qayb gala marka kulankaas baan waqti Soomaaliya matalaysay gudoomiyaha maxkamadda sare Soomaaliya tahay muxuu muhiim u yahay muhiimadda ugu jirtay Soomaaliya iyo waliba waxa la timaadeen maxay ahayd runtii shirku waa shir aad iyo aad u muhiim oo marka koobaad waxa weeye waa shir xog la isku dhaafsado oo ay isku wareystaan hay'adaha kala duwan ee cadaaladda ee ka shaqeeya adduunka waxa la iskaga wareystaa sida loo horumarinayo garsoorada adduunka waxa la iskaga wareystaa kaalinta ay ku leeyihiin garsoorka horumarka dhaqaalaha dib u habeynta maaliyadda iyo yareynta faqriga marka runtii hadda waxa la fahmayaa oo World Bank iyo hay'adaha kale baa ay si fiican u soo fahmayaan inaan maaragtay horumarka dhaqaale iyo dib u habeynta la rabo in maaliyadda lagu sameeyo iyo yareynta faqriga iyo waxyaabahaas oo dhan inaanay sida la rabo u suurtageli karin ilaa ilo helo garsoor hufan oo madax banaan oo awood badan marka runtii taas baa keenta Soomaaliyana runtii waxay ka mid tahay dalalkaas iyadoo waxay ku sii sugan tahay xaalad kale oo ka sii nugul marka loo eego dalalkaasi kale haddana waxaad ka warhaysan in lagu jiro arrintii deyn cafiska iyo dib u habeyn weyn oo dhinaca maaliyadda la xiriidha iyo marka garsoorkuna runtii waa inuu la jaan qaado isbedeladaas iyo horumarkaasi socda marka Soomaaliya waxyaabo badan bay runtii ka faa'iida ka soo qayb galka kulanka waxa dhacday xilliyada qaar mucaaradku inay cawdaan oo xilliyo kala duwan ay culaysyagii la saaray hadday noqoto kulamada ay qabsanayeen isu soo baxyadoodii hadday noqoto qaarkood bada guryahoodii in ay kabada weerar lagu weeraro in garsoorku marka arrimahaas oo kale leeyahay ma culays cadaaladeed oo jira hayno de miisaankeeda leh garsoorku horta runtii waxa weeye waa hay'ad loo soo dacwado hay'ad maha iyadoo faragelisa arrimaha ka socda dalka gudihiisa laakiin waxay ka garsoortaa hadba wixii dacwada u timaada marka haddii loo soo dacwado oo ama mucaarad ha noqoto ama dawlad ha noqoto ama qof caadi ha noqoto haddii uu soo dacwado qofku waxa uu xaq u leeyahay maxkamadda marka inay dhageysato oo cadaalad helo laakiin haddii ama waxa arrimahaas sheegayso ay dhacaan laakiin cidi aanay u soo caban garsoorka aanay u soo dacwo garsoorkii xaq uma laha awood sharci uma laha isagu inuu ku farageliyo laakiin marka ay soo dacwadaan dabcan waxa weeye waa in cadaalad helaan tusaalahaan dadka kale kugu dhigo imaka soo kale in dhawaan Kismaayo xaalad baa ka taagneyd xaaladda ka taagneyd mas'uuliyiin kala duwan baa rabay inay u safraan qaarkood waa la garoonka lagu hor istaagay inay u safraan ama ay tagaan in xisbi kamid ah xisbiyada madaxweynihii hore Soomaaliya Sheekh Shariif uu hogaamiyay dacwad bidii soo gudbiyay taasoo kale maxaad ka yeeshay waa run weeye waa ku soo waday dabcan waa markii ugu horeysay xisbi kamid ah xisbiyadu oo dacwad soo gudbiyay maxkamadda sare dacwaduna marka cid soo gudbiso waxay martaa habbay martaa marka qof soo dacwado dacwada uu qabo waa in loo gudbiyo dhinacii kale ee laga cabanayay dhinaca kale waa inuu ka soo jawaabo kadibna maxkamaddu waa inay mudayso dacwadaasi dhageysigeedii dacwadaasi dabcan waxa soo gudbiyay xisbiga himilo qaran waxa soo ka cabanayo dacwad maamul oo kaga cabanayo hay'adda dawladmaadka rayidka ah dabcan dacwadii maxkamadduna waxay u gudbisay cidii laga cabanayay waa ka soo jawaabtay dacwadii waxa hadda hadsan dhageysigeedii waxaana filayaa maalmaha soo socda in dacwadaasi insha Allah ta'ala ay maxkamaddu dhageysan doonto waan gartay in waa tilmaantay in haata kanaada procedure-kii ama nidaamkii sharciga aad mariseen horena waad xustay in maxkamaddu ay tahay ama hay'adda garsoorka hay'ad loo soo dacwoodo laakiin guddiga garsoorka marka intaynaan u iman tusaalahaan oo kale adigoo kale xilliyada qaar waxaa jirta dood odhanaysa waa guddoomiye maxkamadda sare madaxweynihii baa soo magacaabaya dadka qaar su-aal gelinayaba dhexdhexaadnimadii iyo weliba sida garsoor iyo cadaalad u heli lahaayeen iyo doodaasi maxaad kaga jawaabaysa horta inta adduunyada haddii aad eegto garsoorada adduunyada jira Mareykankan aynu joognana ku daro guddoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorayaasha labadaba waxa soo magacaaba madaxweynaha iyo adduunyada kale oo dhan laakiin waxa laga yaabaa in lagu kala duwan yahay processka la marinayo magacaabista madaxweynaha kadib hanaanka ay marayso
ayuunbaa laga yaabaa in lagu kala duwan yahay laakiin adduunyada intan ogahay intan ka akhriyay dalalka dunida meelaanu madaxweynuhu soo magacaabin gudoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorayaasha maxkamadda sare waxaa filaya in aad u yar